waxaa maanta magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay musharax Khadar Maxamed Jaamac Khadar Guun oo kamid ah murashaxiinta u tartami doonta doorashada golaha wakiilada ee soo socota. Munaasabad ballaaran oo loogu sameeyay magaalada Hargeysana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday asxaabta qaranka, salaadiin, cuqaal, aqoon-yahan, dhalinyaro iyo haween tiro badan. Intii munaasabadani socotayna waxaa halkaasi ka hadlay salaadiin, cuqaal, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haween oo dhammaantood taageero u muujiyay musharaxani cusub soona dhaweeyay hankiisa musharaxnimo ee uu leeyahay Khadar Maxamed Jaamac Khadar Guun. iyagoo ka hadlaya arrintanina waxa ka mid ahaa hadalladoodii wixii ka dambeeyay maalinta doorashada inaynu ogaano farta halkaynu ku ridano raguskuma jiree khabar wuxuu ku duulayaa laba baal labada baal waxa way beesha dib ogaado xildhibaanka aynu xafladan qorsheeya aynu soo baxnayna waxa aanu siinayna doorashada iyo maanta haddii alla ka dhigo xilka ka saaran soo bixidiisa ayaanu diyaaran. Khadar Guun Jaamac waxaan leeyahay kelmadda munaasabadan waxa weeye waa soo dhaweyn. waxaan leeyahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo ku soo dhawow siiba caasimadii aad caanka ka ahayd ee aad ku barbaartay ee dhalinyarada labada daamood ee Hargeysa ka yaqaaneen ku soo dhawow baan leeyahay. annagu kullu qolada siyaasiyiintu xildhibaanada musharaxiinta imaka way noo kala calaamadsan yihiin. rag baan nidhaanaa waa xildhibaan bilaa mushahara waxa la sugayaa inta uu mushaharkii loo bilaabayo. Khadar insha Allah kuwaasuu ka mid noqon doonaa kalsoonina waa ku qabaa. aad baynu u nasiib badannahay haddaynu nahay beelaha dan wadaago ama beesha dan wadaago ee aadka u ballaaran. nasiibka waxaynu ku leeyahay xildhibaanka maanta inoo sharaxan waa nin mug leh oo runtii Soomaaliland laga wada aqoonsan yahay oo u qalma xildhibaannimada maanta ugu shaqayn yahay. waxaan leeyahay xildhibaan ku soo dhawow dalkaagii hooyo insha Allah ta'ala waxaad noqon doontaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ee mustaqbalka باذن الله تعالى. waxa weeye sulaadiintii reeraadaan nahay waanu iska barbar taagaynaa waanu kula shaqaynaynaa sidaasaanu kugu soo dhaweynaynaa. waxaan leeyahay dadka reer Hargeysa aad bay ugu xagga diiwaan gelinta iyo doorashooyinka aad bay ugu firfircoonaayeen. tiriibkan waxa habayciyay iyo halka laga saruugayo dad hore la doorto bay ka qawadeen. insha Allah bismillaahi kariim waxaad noqon doontaa kii la doorto ee dadka hama galiya ee jacayl galiya ee kabiya maanta kabiya ta hore tirsanayaan baad noqon doontaa insha Allah bismillaahi kariim. waxaan kale aan leeyahay ku guubaabinaya dhalinyarada soo dhaweysay ee halkan xafladda u diyaarka inta inoo hadhay ee labada cisho inoo hadhay diiwaan gelinta waxaa idiga codsanayaa inaad dardar gelisaan. ugu dambeyntii waxaa isagana goobta hadalka lagu soo dhaweeyay musharaxani cusub Khadar Maxamed Jaamac Khadar Guun oo halkaasi uga mahad celiyay dhammaan dadka kala duwanaa ee sida weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. waxaana ka mid ahaa hadalladiisii anigu maanta waxaan ilaa 8 kilomayl ayay igu qaadatay safarkan maanta halka idinku yimid sida halkaadii mateen eedii cugateen inaan idin matalo golaha baarlamaanka doorashada soo socota ilaahay ay nagu guuleeyo. anna waxaan ku dagaalgalayaa waa taageeradiina waa farta aad igu codaysaan. waxaan idin ballan qaadayaa inaydaan igu hungoobin ilaahay dartii inaydaan idigu hungoobin oo si cadaalad ku jirto oo xaq ku jiro oo waajibka ilaahay ku jiray faray aanu gunto midaan ceeb idii keenin aan noqon baan idinka ballan qaadayaa midaan meel xun idin baan idinka ballan qaadayaa insha Allah idinka iyo shacbiga Soomaaliland oo dhan. maanta waxay sharaxay maanta beelaha dan wadaago laakiin murashax baan ahay maanta u taagan Maroodi Jeex ka sharaxan baanay cod uga fadhiya Maroodi Jeex oo dhan. nin walbana meel buu ka bilaabay halkaan ka duulaya waa beelaha dan wadaago oo midigtayda iyo bidixdayda ah
oo dadka maanta ay calmadaya ummadda meel kastoo inuu adduunka joogno dad baa grassroots-kiisa soo saara nin walba meel buu iska sharaxaa maanta halka aan iska sharaxaya iyo dadka ay calmaday ee igu tuhmay inaan maanta matali karayo waa idinka abaalkiinana inaan soo celiyaan ilaahay ka barayaya inaad xaqii dirateen laba ereyna waan idinku noqonaya ereyga la yidhaha xildhibaan waa laba ereyoo af soomaaliya waa xil iyo dhibaan yaa ka baxa waxaa ka baxa ninkii sidii ilaahay ku ogaa u fuliya waxaa ka baxa ninkii waxa cadaaladdu tay qabta